dilalku ma aha kuwo cusub ee la soo darsay magaalada Muqdisho dadka ku dhaqan iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya hase ahaatee gubniinku waa mid ku cusub guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in qof bani aadam ah oo socdo lagu gubo gudaha magaalada Muqdisho asagoo aanan la arag wax uu galabsaday wararka ayaa la isla dhaxmaraya in odaygaasi lagu gubay magaalada Muqdisho isla markaasina u geeriyooday gubninkaasi dilka la isugu daray wiil adeer uu yahay inuu guursaday gabar isla markaasina looga argudayay ayadoo markaas la sheegay in labada qabiil aanay isguursanaynin taasoo inta badan culimada diinka Soomaaliyeed iyo adduunkuba ay kaga hadlaan maxaadarooyinka iyo meelaha shirarka la isugu yimaado in haybsooc uu yahay mid ka baxsan diinta iyo shariicada islaamka ugu dawlo ayaa lagu aasay magaalada Muqdisho isla markaasina aaskiisa ay ka soo qayb galeen dad aad u tiro badan oo markaasi aad uga tiiraanyoonayay gubitaanka la gubay iyo dilka la isugu daray haddaba waa kuwana qaar ka mid ah eheladii Axmed Dawlo oo markaasi u baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaanba culimada diinka Soomaaliyeed in arintaasi aanay ka aamusin isla markaasina ay ka hadlaan odayaashan ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha iyo dibadda baarlamaanada aqalada sare iyo aqalada dhexe in nimankii arintaasi ka dambeeyay si degdeg ah sharciyada loo horkeeno isla markaasina sharciga loo marsiiyo haddaba eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Axmed Dawlo oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen sida nidaamka ay wax ku dileen wax u muddo dhan ay ka kululaato way inay faasas seefo waran ay soo qaataan ay dilaan ayna guwaan wax laga xumaado way alxamdulillah hada qalbiyeen waa noo qaboobay Soomaaliyo ilaa duugta ka qayb gashay Soomaaliya duugtay ala una xariisto waxaan anaga dawladda aan ka codsanayna wali aanan ka haynin oo waxna saxayeen wali aanan maqlin madaxweynaha mukahadlin ra'iisul wasaare kama hadlin ra'iisul baarlamaan kama hadlin mushiiqiintii Soomaaliya kama hadlin runta la sheegaa la rabaa inay ka hadlaan waay dhacdadan dhacda xun waay hadis waxa inoo dhindeen nin nool naf ku jirta in la gubo taasina mid loo qaadan karo ma aha dhammaan dowladda dadka ay khusayso arrimaha nabadgelyada in arintan sida uu dhaqsiyaha